qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho ee Afgooye waxaana booliiska oo halkan yimid markii qaraxu dhacay ay sheegeen in tiro ka badan 70 qofood halkan ay ku dhinteen marka loo eego xilliga oo ahayd goor hore oo subax oo dadku shaqeynay u kala tagayeen sida daraadeed ay ahayd subax sabdiya oo ay tahay subaxa ugu badan ee shaqo loo kala laho gaarigan iga dambeeyay waxa la ii sheegay in ay saarnaayeen arday gaaraysa 20 oo sida booliisku ay sheegeen dhigtay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho hal qof oo gaarigan saaran kama uusan harin sida naloo sheegay gawaarida kale ee dadku ka buuxeen ee waxyeeladu gaartay waxa kamid ah gaarigan kale ee caasiga ah ama PL-ka ee dadweynuhu raacaan sida ay Soomaalidu u taqaano waxa naloo sheegay isagoo inuu buuxay oo dadkii saarnaa ee waxyeeladu gaartay gawaarida kale ee aan ku aragnay inay gubteen waxa kamid ah gaarigan kale oo isagu qudhiisu dhammaantiis gubtay waxa naloo sheegay in ku dhawaad 4 qofood ay saarnayd oo aysan waxba ka harin sida ay noo sheegeen booliiska ilaa iyo hadda waxa soconaya gurmad la xiriira arrinkaasi baabuurta gubatay ayaa tiradoodu ay ka sii badan tahay ilaa 10 baabuur taas ka dhigan in waxyeeladu ay wali aad u sii xoogan tahay sida daraadeed halkan waxa ku sugan ehelada dad fara badan oo raadinaya dadkoodii oo ay ku ogaayeen isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho in ay ku sugnaayeen sida daraadeedna raqay ruux aysan ilaa iyo hadda meel ku sheegin booliisku sidoo kale waxa ay sheegeen in baaritaano rasmi ah ay soconayaan sida daraadeedna lagu ogaanayo nooca gaariga qarxay iyo wixii lamida waxa kale oo dad goobjoogayaal ah inoo sheegeen in gaari bulletproof oo ay saarnaayeen saraakiil Turki ah qaraxa markii koobaad lagu dhuftay sida daraadeedna waxyeeladan oo dhan ay ka dhacday waxa booliisku ay cadeeyeen in qudhoodu ay ku geeriyoodeen inkastoo aan tiradooda si rasmi ah lagu sheegin goor dambe waxa yimid taliyaha booliiska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Filish oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dhaawacyo aad u fara badan oo ka badan 50 ay halkan ku dhaawacmeen qaraxii ka dhacay oo Axis Control Afgooye inkastoo taliyaha booliiska Soomaaliya uu diiday in tirada dhimashada ah la shaaciyo maantay oo ah maalin sabti ah dabayaaqada bisha December waxa ka dhacay Axis Control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska Axis Control Afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen dhacay isgoyska Axis Control ee magaalada Muqdisho oo saameyn aad u ballaaran oo ishu inta ay aragtaa gaarsiiyay dadkii halkan ku sugnaa iyo dhismayaashii waxa kale oo qaraxyo dadka saameeyeen ku jiray dadka ka agdhow xaafadaha ku yaala Axis Control Afgooye wixii soo kordhana halkan kala soco Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho